dadku siday wax u fahmi karaan baa wax loogu sheega waxay inoo ka dhigan tahay innagu hadda waxaynu degannahay xero abaara oo xooluhu naq waayeen oo biyo waayeen oo caatadu ina ka ceeraatay oo cudur iyo cashi ina helay qaabka aynu ku jirro oo qabaliga ah oo 66ka xildhibaan lagu soo doorto adeerow meesha igee oo aan qofka shacabka ahi cod lahayn horta waxay ka dhigan tahay abaartaas harga cunada haddii laga guuro maxay inoo ka dhigan tahay waxay inoo ka dhigan tahay saman barwaaqaayo balliyada xareeddu jiifto xooluhu dhaleen dhallinyaradu cayaarayso reeraha iyo labadii diraacda isu toorwaaya ay sheekaysteen oo is arooseen meel walba alalagta iyo arooska iyo durbaanku ka dhacayaan saasaan qabaa inay kala tahay in dadku codkooda inta dhiibtaan cidda ay rabaan ay doortaan cidda ay rabaanna la xisaabtamaan shaqadii laga raba in ay qabtaan taynu marka hadda ku jiro haddii laga guuro su-aashaadii kale waxay ahayd wakhtigaad igu soo koobtay waxaan isiri wakhtiga teelay oo iga kala dhuntay maxay ahayd su-aasha saddexaad maamul daadejinta waa ka hadlay oo sideeda waxay inoo ka kala dhigan tahay xilli abaar iyo xilli dooga qofkuna waa garan karaa abaar iyo doog meesha ay kala joogaan midda kale yaa mas-uuliyadda leh mas-uuliyadda looma sinna innagu maamul baynu leenahay waa aniga hadda idhi 2005tii doodda dimuqraadiyadda puntland baan golahan BDRC kaga qaybgeli jiray weli doodii waa socotaa il baa inoo baxday waxaynu islahayn soomaaliya oo dhan baa dhibaatadaasi haysato dee haddaba waa tanbahasha dadban la keenay marka waxaa la yidhi nin illa qoonan dhalaa waa u boqor keligiisaa wax ka arkay isna boqortooyadiisu ishoo saxar kaga dhacay ku xidhanta dee waa indhooluu noqonayaa gruubkiisu ku biirayaa marka dowladdu iyadaa mas-uuliyadda lahayd mas-uuliyaddiina hadda waa maqlaynay oo golayaashii la doortay dadkii ka soo baxay waxay hadda ka cabanayeen meel wax naga jiraan ma hayno filinkaa halkaa ku shideen hal nin mooyaane dadka intiisa kale isku aragti bay ahaayeen oo waxay lahayn war meel wax jiraan ma naqaan marka waxaa jiray waagii dadku danyarta ahaayoo saboolnimada beleda ay jirtay yaa waxaa jiray mudugaa nin iyo carruurtiis marka allabaryaday ka qaraaban jireen mana tukan jirin ayaa intii dambaa qola masaajidka kagala gashay mawliidkii waryaa hebelow war haaweydii masaajidkay la galeen xoogaagiiya cagaha soo mayruu yidhi horta baasha hadda waxay maraysaa meel loo cagamayrtana lama yaqaan qolo walbaa ma annaan arago ma annaan urin bay yidhaahdeen dowladdana hadda wasiirku wuxuu yidhi dhowaan rajaa jirta rajadiina midda hadda laga warramayayoo gabadho ay tiri inaan codeeyo maaha inaana dhalin baan jeclaan lahaa bay ahayd mar hadday marka gabadhii codaysay dhashay wixii ay doonaysayna weli aan lahayn haddee reerkaa taladiisu waa tala barakaysan weeye